السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal maanta waxaan ka hadlaynaa HTML waa HTML for beginners waa dadka beginnerka ah waa dadka bilbilowga ah waxaan rabnaa insha Allah in aan casharkan aan asagoo dhameystiran aan video aan kusoo gabagabeeyo maxaa yeelay dad badan ayaa waxay dhaheen casharo ayaan u baahannahay oo bilbilow ah marka casharkan waa dheer yahay laakiin ogow wax kasto HTML ku saabsan aad ku baranaysaa halkan oo aad u baahan tahay kama hadlaayo wax kasta in detail ogama hadlaayo wax kastana micnaha wax kasto HTML ku jirna kama hadlaayo waxaan ka hadlaa waxyaalaha u baahan tahay si aad website aad u istaajisid marka ugu horeyso HTML waxay la shaqeysaa CSS waan ka hadli doonaa waxay tahay HTML waxaasoo dhan CSS cashar kalena waan ka sameyn doonaa oo asagana gooni ah oo beginner ah horta aan isweydiino waa maxay HTML ayada laftirkeeda HTML waxay u taagan tahay hypertext markup language u taagan tahay HTML laftirkeeda ma ahan programming language ma ahan sideeda dhanba programming languageska waa luqadaha JavaScript Java C# luqadahaas ayaa programming la dhahaa HTML waa luqad structure ah ama micnaha dhisida lafaha website-ka ayaa lagu dhisaa marka waxaa loogu talagalay in lagu dhiso website-yada iyo dokumentiyaasha waxaana bilaabay oo bilowgii micnaha soo bandhigay nin la yiraahdo Tim Berners-Lee actually waxaa uga hadlay video taariikhda HTML oo dhan laga soo bilaabo 1980 ilaa iyo qarnigan hadda joogno video ayaa uga hadlay dhowr video meesha description-ka gelin doonaa taariikhda HTML markii ugu horeysay oo isticmaalkeeda la bilaabay waxay ahayd 1993 ayaa isticmaalkeeda la bilaabay maxaad u baahan tahay si aad casharkan aad uga faa'iideysato computer ayaa u baahan tahay computerka noocuu yahay micno ma sameynayso nooc kasta ha ahaado ama laptop ama desktop ama Mac ama computer window ha ahaado as long as computerka uu yahay computer aad wax ku qori kartid oo aad document ku qori kartid waa sameyn kartaa code editor u baahan tahay code editors waa badan yihiin aniga midkan isticmaalayo waxaa la yiraahdaa VS Code kuwa kale oo badan ayaa jiro oo aad isticmaali kartid waxaa kale u baahan tahay browser badanaa waxaa u baahan tahay Chrome ayaan aniga kugu recommend garan lahaa ayadaan ugu roon hadda ugu khatarsan markay noqoto browserada Firefox waa isticmaali kartaa Internet Explorer waa isticmaali kartaa laakiin Chrome ayaa ka khatarsan marka inta aanan bilaabin waxaan rabaa inaad ogaataan casharkan wax CSS kuma jirto maxaa yeelay CSS-ka cashar gooni oo ka hadli doona waxaan rabaa casharkan in aad ka faa'iideysataan markay noqoto dhinaca HTML-ka iyo si daqiiqa inaad u fahantaan waa maxay HTML maxay sameysaa waxaasoo dhan dad badanaa waxay sameeyaan website hadda kor cashar xataa waan sameeyey website la sameynaya qofka waxaa laga yaabaa inuu rabo inuu ogaado HTML waxay tahay oo kaliya laakiin waxaa lagu wareerinayaa waxyaalo kale carrada ka badan iyo website iyo CSS iyo JavaScript waxaas lagu wareerinayaa casharkan website gooni ama dhisayno laakiin waxaan intusaay micnaha qaybaha ka mid ah HTML sida loo isticmaalo casharkan waxaa lagu talgalay aasaaska inaad dhisatid oo haddii aad baratid HTML-ka CSS-ka baratid aasaaska ayaa ku istaagsan markaas waxaad bilaabi kartaa inaad website dhistid HTML-ka file kasta oo HTML waa in uu ku dhamaado .html inuu ku dhamaado weeye waana extension-ka oo HTML index HTML-na waa muhiim waan baran doonaa mar dhow wuxuu yahay index HTML waxaa weeye waa guriga markii aad website dhisaysid oo qofku aado ka soo qaad something.com markuu aado wuxuu tagayaa index.html laakiin haddii uu rabo inuu page-ka about us camal tago waa inaad qortid about us.html laakiin haddii index.html tahay qasab maaha kor inaad ku qortid /index.html waana arki doonaa arrintaas okay aan bilaawno marka sheekada iyo codeka aan bilaawno okay so editorkanaga waa kana waa VS Code la yiraahdaa waad soo download garaysan kartaa waa free 100% video kale ka sameyn doonaa wuxuu yahay qaybaha loo isticmaalo haas hadaa u baahan tahay waa ogaan kartaa haddii kale editorka adiga leedahay aad isticmaali kartaa nooc raba ahaado editorial badanaa ku jiro internetka just waxaa dhahdaa code editor waanu ku soo baxayna iyagoo carrada ka badan folder ayaan sameeyey oo waa kana HTML folderkan ayaan sameeyey tutorials HTML folder marka hadda folderka bisa noogu jiro waxaan sameynaynaa insha Allah
index.html iyo pages kale haddaa u baahan waan sameynaynaa marka editorka gudihiisa aan ku sameynaynaa waxaan sameynaynaa marka ugu horeyso file cusub waxaan leynaa right click new file kabacdi waxaan bixinaynaa index.html ayaan u bixinaynaa haddii aa editor kale leedahay waxaad sameynaysaa page file cusub aa furaysaa kadib markaad save garaynaysid waxaad ku qoraysaa index.html so kaba soo qaad for example website aad leedahay websitekaada meesha laga galo oo domainka something.com markii la galo pageka ugu horeeya u baahan tahay in uu soo baxo waa index.html umana baahnid dadka in aad u sheegtid oo dhahdid inaad gashaan waaye websitekeyga something.com/index.html inaad u sheegtid ma aha maxaa yeelay browserada iyo websiteyada inta badan oo kambaniyada hostingka waxay sameeyaan way ogyihiin index.html inuu yahay homepageka oo meesha ay dadka imaanaya ugu horeyso marka qasab ma inaad ku qortid /index.html okay indexka marka waxa weeye waa homepageka weeye waxa ugu horeeyaan sameynayna waxa weeye marka structureka waxaan ku bilaabeynaa html html waxay leedahay structure oo gooni ay leedahay oo structurekana waxa weeye waa structure loo dejiyey oo browserka u fahmayo habkii browserka fahmi lahaa weeye marka aan ku bilaawno so marka ugu horeyso waxa ugu horeeya waxaan sameynaynaa waxa la dhaho actually browserka noo soo saara soo jeedid waxaan sameynaynaa waxa la dhaho doc type calaamadaas saaraysaa calaamada cajabka doc type html waa maxay doc type waxa weeye waa document type basically and html5 ayaa doc type markii aad rabto html5 inaad u qeexdid browserka so waxaa jiro html waxay soo martay qaybo kala duwan waxaan uga hadlay taariikhda html video baan uga hadlayo qaybo kala duwan ay soo martay oo ah html2 html4 html5 ay soo martay marka html5 hadda ku jirnaa actually since 2014 ilaa iyo hadda html5 ayaan ku jirnaa so doc typeka sheegaysaa marka hore kadib waxaa sameynaysaa waxaa ku bilaabaysaa marka and then waxaa ku bilaabaysaa html so doc typeka waa html fileka waxaa ku bilaabaysaa structurekiisa soo dhaweeyo structurekiisa waxaa ku bilaabaysaa html so waxaa u sheegaysaa waxaa leedahay wax kasta u dhexeeyo labadan html waxaan rabaa browserka in ay uu micnaha render gareeyo ama soo saaro waxaan ku xijinaynaa waxa la dhaho head waxa weeye waa madaxa koro html-ka waxaa markaan dhammaystirno calaamadahana arkaysaa inay micno markaa sameynaysaa waxaan sameynaynaa body ayaan leenahay intana waxaan gelinaynaa headkana waxaan gelinaynaa titleka waxaan leenahay html tutorial okay so hadda waxaan sameynay marka documentiga dhan waa kana wuxuu ku dhex jiraa html waxaa jira headerka waxaa ku fikirtaa camal waxaa ka mid dhigtaa htmlka sida qof camal so qofkii oo dhan waa kana madaxiisa kore waa kana iyo jirkiisa kalena waa kana baadiga allah okay so titlekan ma aha titleka laga arkayo browserka ma aha titlekan waxaa weeye waa titleka meesha kore oo browserka oonan micnaha dadka wax ku akhrisanin browserka magaciisa meesha kore laga arko waan ku tusi doonaa insha allah okay waxyaala kale aan gelinaynaa waxaan gelinaynaa for example waxaan gelinaynaa waxaan ka hadli doonaa waxyaalaha kale oo dhan aan ku bilaawno paragraph aan ku bilaawno p waxay u taagantay paragraph weye waxaan leenahay this is a paragraph okay so hadda waxaan sameynaynaa marka save ayaan leenahay file save ama aniga waxaan taabtaa control s marka hadda kabacdi markaan save garayna control s ayaan taabanayaa kadib waxaan sameynaynaa waxaan furaynaa browserka let's open so aniga waxaan leeyahay waxa la dhaho go live soo jeedid browserka markii halkan taabtay soo ma arkin waxaa soo baxay browserka micnaheedu waxaa weeye waa live refresh way wuxuu sameynayaa markastoo isbedel sameeyo automatically uu refresh gareynayaa arrintaasna waxay ku imaanaysaa waxay ku imaadaa VS Code-kani ku imaadaa laakiin haddii aadan taas haysanin waa inaad markastoo isbedel aad sameyso refresh inaad dhahdid way page-ka okay so gees aan iskaga dhigno and this one aan yareysano let's close this is my videos kayga waaye alright aan weyneysano okay so dhinacaan browserka noo yaalo dhinacaan waxaa noo yaalo documentigii so hadda waxaa ku jiro meesha paragraph ku jiro so for example hadda haddii aan right click ku sameyno
oon dhahano waxaan leenahay inspect aan leenahay inspect markaan dhahno oon baalkii furno aan weyneyno waxaa arkaysaa waxaa kusoo baxaya codekii soo ma jeeda html kana head body so hadda haddii aan headka furno waxaa soo baxay titlekan headka ku jiro wuxuu ku jiraa meeshan waa halkan weeye meesha browserka kore baadiga waa kana waxaa ku jiro paragraph code kale ku jiro codekan kaloo ku jiro waxaa weeye waxaa geliyey baalkan isticmaalino live serverkan ku dhahay halkan dhagaan siinaya ayaa geliyey marka annaga waxaan gashanay ma ahan so scriptigan waxaan haddaa arkaysid wax inay ka mid ahaadaan meesha ma ahan baadigina waa kana soo xiritaanka la soo xiraaya mar kasta ood wax furtid waa inaad soo xirtid marka okay so that is a paragraph way waxaan sameynaynaa marka waxaan ku laabanaynaa structure intaas weeye waxaan sameynaynaa qaybo kala duwan qaybo u kala baxo html-ka ayaan sameynaynaa qayb kasta wuxuu tahay so paragraphka hadda waan sameynay waxaan sameynaynaa waxa la dhaho header so wax kastoo aad rabtid in uu browserka uu soo bandhigo ama soo render gareeyo waa inaad halkan ku qortid baadiga gudihiisa inaad ku qortid weeye that's habka ugu fiican weeye haddii kale browserka qaar way soo bandhigayaan laakiin haddii meelana ku qortid laakiin ma fiicno always waxaa fiican in aad baadiga gudihiisa ku qortid so waxaan qoraynaa marka paragraphkan qornay so paragraphka waa p daas weeye markastana html-ka markasta ood qortid wax oo aad tag a qortid waxyaalahan tag ayaa la dhahaa this is a taggan waxaa marka waa xaraf labada dhinac qaansa ku leh markastoo rabtid inaad soo xirtidna waa inaad labada qaansa aad u samaysid iyo calaamadaas daashta inaad u samaysid markastana labada xaraf waa in isku mid yihiin hadda editorkayga automatic hadda haddaan capital ka dhiga midkan kan kalena actually sometimes wuxuu ka dhigaa automatic laakiin labadoodaba in ay isku mid yihiin fiican haddii mid aad capital ka dhigto mid kale capital ka dhig inkastoo badanaa ayna fiicneen in capital laga dhigo oo lower case always laga dhigo markay noqoto tag waxaan sameynaynaa marka head aan sameynaynaa waxaan sameynaynaa let's say h1 waxa la dhahaa jiro h1 waxaa weeye waa header 1 so haddii aan hadda inta aan sameyno waxaan leenahay headers okay h1 ayaan leenahay h1 waxaan leenahay waa headerka ugu weyn weeye header 1 soo ma jeedid waa kana marka h1 wakaasa h1 waxaa loo isticmaalaa titleada aad ku waaweynaa loo isticmaalaa waxaa kale oo jiro h2 ayaa jiro asagana sidoo kale waxaa loo isticmaalaa titleada waaweyn header 2 kan kale waa kasii yaryahay waxaa loo isticmaalaa always asagana haddii aad rabtid titlekaas ka yar camal ama subtitle camal haddaa rabtid inaad isticmaashid waxaa jiro header 3 way badan yihiin ilaa 6 waaye header 3 asagana waa kasii yaryahay so just keeps going like that saas usii soconaya let's keep going and h4 header 4 and then header 5 and then 6 and then waa copy garaynaya I'm just gonna copy 2 labaan copy garaynaya kadibna midna waxaan ka dhigayaa 5 midna waxaan ka dhigayaa 6 so aniga waxaa ii dhamaystira browser bahalkan editorkan wuxuu leeyahay wax kuu dhamaystirayo so haddii aan kan wax ka bedelo kan kalma bedelma automatically laakiin adi waxaa laga yaabaa inaad sidii manual aad u samaysid mid kasto so as you can see waa kuwaana headerka kan ugu weyn waa kana kan ku xiga kan saddexaad ilaa number 6 weeye so this one should be 5 and 6 so that's habka u shaqeeyaan saas waa headerska muhiim waaye maxaa yeelay waxaa loo isticmaalaa always waxaa loo isticmaalaa markaad sameynaysid website qaybaha websiteka haddii aad rabtid inaad kala bibixisid ayaa loo isticmaalaa waan ka gudbaynaa waxaan u gudbaynaa links ayaan u gudbaynaa linkska waxaa weeye linkska aad bay muhiim u yihiin html markii la imaado linkska waxaa weeye waa waxyaalaha waxa keliya oo magaca html actually ku jiro hyper text markup language maxaa loo dhahay hyper micnaha waxaa weeye wax micnaha marba meel u boodaayo weeye waxaa loo dhahay waxaa weeye documentyaal badanaa jiray oo sida pdf xataa waa document caadi ah Microsoft Word waa document caadi ah laakiin html waxa sababta loogu isticmaalo internetka waxaa weeye linkiga weeye marka aan qorno linkiga suu yahay iyo wuxuu yahay so linkiga wuxuu ka bilaabdaa waxa loo dan waxaa la dhahaa waa anchor ayaa la dhahaa anchor tag ayaa la dhahaa waa waxa sheegayo in uu yahay waxaan link kabacdi waxaa jiro attribute la dhaho href tan waa referencega weeye
waxay u tahay attribute ama waxay u tahay qeexid eedan oo ah anchorka kabacdi waxaa leedahay inta waxaa gelinaysaa browserka waxaa gelinaysaa magaca rabtid so for example waxaa gelinaysaa www.google.com kadibna waa soo xiraysaa so markastood soo xirtid automatically anikaygu wuu ii furo ujeedaa waxaa kusoo xiraysaa calaamadaas eeda kalaa kusoo xiraysaa laakiin inta gudaha waa inaad gelisid wixii aad rabtay inay dadka arkaan so waxaan leenahay go to Google aan leenahay hadda save haddaan nahno as you can see waa kaasaa so kan saas noo dheh so go to Google so haddaan ka dhagsiino supposed to go to Google actually inaan ku darno inta http inaan ku darno weeye s marka si aan markii aan dhagsiino uu Google u aado so if we click that it will take you to Google u aadaa so and sababta micnaha hypertext markup loo dhahay waxaa weeye saa ujeeda hadda waxaan ka baxnay pagekan waxaan tagnay Google aan tagnay so that is very very powerful aad bay muhiim u tahay markay noqoto barashada HTML-ka inaad ogtahay habka linkiga loo sameeyo sida linkiyada la iskugu xiro website-yada waxaa laga yaabaa boqolaal ama kumanaan kun oo link inay ka kooban yihiin waxa muhiim ka dhigaya oo website micna u sameynayana waxaa weeye waa linkskaas weeye wax kasto waxbaa isku xiraayo okay waxaan rabaa inaan ka hadlo marka inta aan hore usii socono waxaan rabaa inaan ka hadlo headkan waxyaalo badan oo waxaa jiro headkan la geliyo waxaa ka mid ah waxyaalahaas waxa la yiraahdo meta waa arkaysaa hadda website kasto tagto calaamadaas meta waa ku arkaysaa meta waa information way basically metadan marka waxyaalo badan loo isticmaalo waxaa jiro waxa la dhaho character set waxa la jiro character set kan waxaa weeye waa UTF for example 8 and then so xirena so character set kan waxaa weeye basically waa encoding weeye waa wax hadda inaa qasab inaa ogaato ma ahan muhiim kuma hadda laakiin waxaa weeye waa habka internetka uu micnaha browserka u garanayo habkii loo tusi lahaa xarfahan siduu u tusayaa h suu tusayaa e suu u tusayaa maxaa kala duway h iyo number 3 maxaa kala duway siduu u tusayaa waa arrimo little bit complicated oo advanced ah laakiin muhiimadda waxaa weeye waa u baahan yahay browserka inaad u jilcisid oo u sheegtid exactly waxa aad rabtid inaad samaysid meera kala jirto oo samayn kartid for example waxaad samayn kartaa wuxuu website ku saabsan yahay waxaan leenahay kan HTML tutorial aan leenahay okay ama waxaan leenahay kaba soo qaad name-ka waxaan dhihi karnaa haddaan rabno HTML kabacdi content ayaan furaynaa wagaayar aan dib u dhiga kan contentiga waxaa meesha ku jira aan u sheegaynaa website-ka ku jiro waxaan leenahay HTML tutorial weeye casharka meesha ku jiro inaa soo xiraysaa so meta tag noocaas arkaysaa waxaa kaloo arkaysaa tan micnaheedu waxaa weeye waxaa ku qeexaysaa website-ka waxa ku jiro basically information ku jiro website-ka meta tag kaloo waxaa arkaysaa dhahayso for example name is equal to key waxaa leedahay kaba soo qaad keywords and then waxaa leedahay content waxaa leedahay HTML tutorial waxyaalo noocaase kan waxaa weeye for example xarfaha aragtid in uu markii Google uu raadinayo website-kan uu fiirinayo so Google waxay sameeyaan markasto marka cabaar la joogaba way ordaan website-kaadii imaanayaan way raadinayaan wax ku jiro adigoo u fududeynaysa waxaa leedahay waxa ku jiro website-kayga waxaa HTML iyo tutorials iyo waxaa samaynaysaa tags badanaa samaynaysaa waxyaalo kala duwan oo fara badan yaa gelin kartaa directly it's up to you taasna waa website badanaa way isticmaalaan which is good way fiican tahay waxaa u fududeynaysaa shaqada Google in ay website-kaada ogaadaan waxa uu yahay tan kale oon rabo inaan geliyo waxaa weeye waa name equal to author mid la dhaha jiro content equal to whatever magacaada gashanaysaa tanna basically sida ay isqeexayso waxaa weeye qofka website-ka maamula ama iska leh ama qofka micnaha dhisay website-ka tan ugu dambeyso oon rabo aad inaan idinka dhaadhiciyo oo ugu muhiimsan xataa kuwaan dhanka muhiimsan waa iska tuuri kartaan kuwan haddaa rabtaan oo qasab ma inaad isticmaashaan way fiicanta inaad isticmaashid bal qasab ma ahan tan ugu muhiimsan waxaa weeye waa meta
waxaan leenahay meta name equal to viewport allaatan viewportiga muxuu yahay meelo badanna waa ku arkaysaa viewportigan waxaa weeye meradan muhiim ayay tahay markii responsive a websiteka ka dhigaysid haddaa rabto websitekaada in mobileka si fiican looga arko tabletka si fiican looga arko computerka desktop si fiican looga arko waxaa u baahan tahay viewport u baahan tahay viewportna waxay sameynaysaa bal aan sii wadno aan basically aan wada qorno wuxuu yahay content ayaan leenahay equal to waxaan leenahay width is equal to device width aan leenahay and then waxaan ku daraynaa mid kale oon leenahay initial waxa weeye waa initial scale not equal to initial scale is equal to waxaan leenahay 1.0 kabacdan soo xireynaa maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa xoogaa expand gareyna si aa u aragtaan so waa kana linki balka dhanba waa kana so waxaa laga wadaa magaca waxaan rabaa viewport waxaan rabaa in aan waxaa leedahay deviceka ama waxaa isticmaalaysid qalabka isticmaalaysid sida mobileka iyo computerka waxaa isticmaalaysid balaciisa ama intuu balaciisa dhan yahay in uu la ekaado websitekaana waxa ku jiro so waxaa rabtaa browserka in uu la ekaado websitekaada inuu la qabsado basically deviceka uu ku jiro markaas initial scalekana waa sidoo kale initial scaleka waxaa weeye waa soo dhoweynta ama zoomka weeye markaas soo zoom gareynaysid initial scaleka 1 baad saaraysaa 1.0 gaas wuxuu taagan tahay waa 1 pixels ayaa zoom garaynaysaa which is detail on sii geli karaa laakiin muhiimadda waxaa weeye basically si fiican oo la ekaysiye weye deviceka markaas aad isticmaalaysid umana u baahnid wax oo kala duwan inaad isticmaashid meeshaan basically intaan haddaa isticmaashid websitekaadana aad responsive ka dhigtid intaasaa kugu filan so aan ka gudubno marka hadda waxaan u gudbeynaa images aan u gudbeynaa so image haddaa rabtid inaad soo gelisid waxaa jiro waxa la yidhaahdo image tag so aan halkan ku qorno image tag waa kaasaa image tagga waa img image tagga ma laha micnaha waxyaalo kale for example camal sida herarka waxay leeyihin h1 iyo waxaas imageka wuxuu ka bilaabdaa img kabacdi waxaa ku xigo attributekan source src ayaa loo soo gaabiyey source waxa weeye waa meesha aad kasoo qaadanaysid waxa sawirka meesha kasoo qaadanaysid kabacdi waxaa gelinaysaa linkiga sawirka halkan waxaa gelin kartaa www meeshuu linkiga ku jiro hadduu yahay linka caadi oo internetka meel kale kasoo qaadatay haddii kale waxaa gelinaysaa wax la dhaho relative path ama waxaa gelinaysaa sawirka hadduu ku jiro filekan index html gudihiisa folder ku jiro ama agtiisa hadduu ku yaalo linkigii ama waxaan ka wadaa imagekii halkaas kasoo qaadanaysaa saan ka hadlayna daaye waxaan haysanaa folder la yidhaahda image waxaa ku jiro dhowr image ku jiro for example camal kan geel camal waa sawir geel ah yaan soo gelinaynaa si aan haddaan rabno inaan soo gelino waa inaan dhahno calaamadaasaan gelinaynaa marka hore soo dhibic slash micnaheedu waxaa weeye wixii ku jiro filekan fiiri camal weeye waxaa ku jiro folder iyo indexa ku jiro soo mujeedid marka editorka isla markiiba kusoo saarayaa so folderkan dooranaynaa folder gudihiis markaa sii geshid waxaa kusoo furmaya wixii folderka ku jiray so geelaan taabanaynaa so kaasoo iska xirnay so hadda waxaa noogu jiro waa image sourciga waxaa weeye waa imagekaas geel kabacdi aan soo xireynaa so imageka wuxuu uga duwan yahay kuwa kale ma lahan tag lagu soo xiro sida saan camal ma dhehaysid image saas ma dhehaysid waa qalad inaad saa dhahdid imageka asaga is soo xiraayo waa self contained tag la dhahaa waa tag ayada keligeed ismaamusho marka hadda haddaan saan dhahno maxaa dhacayo bal aan save gareyno so as you can see sawir halkan ku jiro dhow aad u weyn yahay this is a really large picture soo jeed sawirka marka aad u weyn waa inaan xadidno waa sawirkan haddaan rabno inaan xadidno inta aan xadidin waxaan ku daraynaa wax la dhaho alt altiga waxaa weeye for example ka soo qaad imagekana soo bixi waaye qofku soo bixi waaye
altigaan u arkaya qofka. waxaa kaloo altiga loogu talagalay dadka isticmaalayo qalabaadka dadka aan wax arkin, for example, oo dadka indhoolayaasha ah markii ay isticmaalayaan deviceska sida iPhone-ka iyo device kale markay isticmaalayaan markii ay kor imaadaan sawirkan wuxuu yahay intaa loogu qeexaya. So intaa waa u sheegi kartaa qeexitaan, xataa dhigi kartaa geel Masar jooga dhigi kartaa, Masar jooga whatever, because waxaa ku yaalo pyramids-ka ku yaalo waa Egypt pyramids-ka ku yaalo si uu qofka micnaha u garto waxa exactly what's going on, why image-kan muxuu yahay. And then waxaan sameynaynaa width aan sameynaynaa waa balaca waxaan leenahay kaba soo qaad 300 waxaan kaloo sameynaynaa height waxaan ka dhigaynaa asa height-kana let's make it 300 square aan ka dhigaynaa. Let's save aan dhahno. saa ujeedid image-ka hadda waa yaraaday xoogaa isku dhex daadsan yahay. So let's make it something like aan ka dhigno balaca aan yareyno 200 aan ka dhigno kana aan ka dhigno 300 kiisa u deynina, which is even worse. aan ka dhigna kan 150 aan ka dhigaynaa dhererka. So saa ujeedid image-kii sawirka meeshuu ku jiraa waa kaasaa. waxyaalahan aan kala fogeyno aan gelino HR waxaa weeye waa line way. Okay, and then kana waxaan gelinaynaa BR na waxaa waaye line break way, waa break way. So waxaan kala bixinaynaa bas title-ka iyo image-ka. Okay, so image-ka wakaas image-ka wuxuu leeyahay calaamadaas IMG source-ga waxaa weeye waa linkiga image-ka. So waxaa gelin kartaa inta HTTPS whatever the linkiga caadiga URL-ka, ama waxaa gelin kartaa relative waxay dhahaan, waan ka hadli doonaa relative URL, ama waxaa gelin kartaa relative URL kabacdina waxaa gelinaysaa alt oo ah informationka wuxuu yahay image-kan. waxaa loo isticmaalaa laba wax, midna waxaa loo isticmaalaa device-ka qofka dadka indhoolayaasha markay isticmaalayaan si ay ku gartaan sawirkan wuxuu yahay, iyo kabasaqaa sawirka hadduu furmi waayo waxaa soo baxay altiga soo baxay. So image-ka wakaasaa waxaan gelaynaa let's HR aan dhahno. HR waa line cusub noo fur. waxaan gelaynaa buttons aan gelaynaa buttonska way iska fudud yihiin. BR aad ay u fudud yihiin buttonka all you have to do is just waxaa leedahay button and inta waxaa leedahay click me, and that's a little it. intaas le waa buttonka lagu sheegaa dhan wakaasa soo jeedid. So title aan u sameeyey button la dhaho and then waxaan idhi buttonka click me. So haddaa click garayso waxaa ma dhacayaan. hadhowda waxaan ka hadli doonaa form oo idin tusi doonaa habka formka loogu isticmaalo button si ay wax u sameysmaan wax u dhacaan. Okay, buttonka markaan ka gudubno waxaa jiro for example list wax la yiraahdo. listiga muhiim waaye maxaa yeelay waxaa loo isticmaalaa markii aad waxyaalo dhibca ka hadlaysid. laba nooca jiro oo list ah HR laba nooca list jiro. nooca ugu horeeya waxaa la yiraahdaa waana ka hadli doonaa arrintan actually comment aan geliyo. midka ugu horeeya waxaa la yiraahdaa unordered list aa la yiraahdaa. sababta loo dhahay unordered list waa inta tusi doonaa hadda. So waxaan leenahay UL oo u taagan unordered list, kabacdi waxaan leenahay LI, kabacdi waxaan leenahay list 1 aan kala ku darno dhowr xabo, and then list 2, list 3 and list 4. save aan dhahno. soo ma jeedo kana listiga markuu noo soo baxay. listiga saa uga jeedid waxaa weeye waa unordered list. waxaa loo yiri waxaa weeye dhibcaa ku yaalo oo micnaha hab order uma sameysno. markii aan sameyno ordered list arki doontaa. kan dhibca ma lahan, waa listiga oo caadiga ah oo dhibcaha ah oonan kala lahayn wax kala dheer. waxaa jira marka ordered listna waa jiraa. ordered list waa OL and ordered listiga kana loo sameyn karaa list. LI dan haddaa aragtid micnaheedu waxaa weeye waa list item aa laga wadaa. list item
macnaha waxa weeye markasta waxay soo hoos gashaa order list and order list soo hoos gashaa list 1 I'm just gonna copy garanayna save saa ujeedid kan unordered waaye maxaa yeelay wax ma lahan macnaha kala sarreeyo kan laakiin saa ujeedid 1 2 3 4 lagu daray oo aniga halkan kuma darin 1 2 3 4 waxaa ku daray html ku darayso waxay aqoonsan tahay ol marka dhexdid macnaheedu waxa laga wadaa unordered list editorkana waa kana ku tusaa soo jeeda ol element represents a list of items where the item have been intentionally ordered such as the change in the order so basically wuxuu leeyahay macnaha ol waxa laga wadaa waa list adiga aad go'aansatay inuu kala dheer yahay oo macnaha midkan number 1 mid 2 number 3 saas u kala dheer yahay marka always taas xasuuso okay waxaan rabnaa marka hadda inaan ka hadalno tan ka gudubno hr waxaa garanaysaan waa line dheer u dhexmarinaya waxaan rabnaa inaan ka hadalno waxa la yidhaahdo styles inaan ka hadalnaa rabnaa for example camal waxaan rabnaa inaan sameyno waxaa jiro wax la dhaho inline styles hadhowdi markii aan css ka hadlayno oo css ka cashirka css ka bilaawno ayaa waxaa arki doontaa markii aan sameynayno designka caadiga ah laakiin hadda waxaan sameynaynaa design oo la yidhaahdo inline design la yidhaahdaa oo inline styling for example camal waxaan sameynay paragraph wax baan ku qornay kaba soo qaad wuxuu yahayba wax badanaa ku qori kartaa haddaa rabtid paragraphka okay so waxaasaan ku qornay waxaan rabnaa inta ka tusno horta marka hore waa kana saa ujeedid sababta u weyn because anaa soo weynayay so waa kana paragraphka naga waa kana meeshaan noogu qoran yahay waxaan rabnaa textiga qoraalka meeshaan ku yaalla fartiisa colorka inaan bedelno inline style markaad sameynayso waxaa leedahay style waxaad dhex gelinaysaa tagga ugu horeysaa gelinaysaa gudaheeda kabacdi waxaa qoraysaa style equal to waxaan leenahay color and then waxaan leenahay let's say blue camal aan dhahno so hadda wuxuu sameynayaa style hadii aan qalan style okay spellingaas ka saxno so hadda wuxuu sameynayaa basically paragraphkan oo qaadaya fartoo dhan wuxuu ka dhigayaa blue soo jeedid blue ka dhigay waxaa rabtaa ka dhigan kartaa red fartoo dhan red ka dhigay so inline styling aan dhahaa waxyaala muhiim waaye waxaa ku sameyn kartaa wax kasta oo css ku sameyn kartid iyo halkan ku sameyn kartaa so let's say camal waxaan rabnaa wax kale inaan ku darno all we have to do is just waxaan kala dhexaysiinaynaa calaamadaas and then waxaa rabtaa dhehaysaa waxaan leenahay font size equal to 2 pixels aan leenahay aadi farta u yaraanaysaa as you can see maba la arkale xataa let's make it 20 pixels aadi u weynaanaysaa waxaa rabtaa ka dhigi kartaa inta waxaan ka dhigi karnaa for example stylekan waxaan bedeli karnaa habka ay tahay oo dhan yaa farta bedeli kartaa laakiin ogow habkan habka ugu fiican ma ahan habkan waxaa loo sameeyaa markii aad hadhow css markaan ka hadlayno waxaa jiro waxa la dhaho hierarchy ama kala dheeri waxa lahaa jiro css fileka markii aad sameynayso hadhowdii wixii aad css ku qortay inta waxaa ku qortaa ka muhiimsan so haddii fartaada ka soo qaad aad tiri css ka blue iga dhig intan aad tiri red ka dhig redkaana la qaadanaya habkaana hab fiican ma ahan oo markii aad sameynaysid isbedelo fara badan markaad sameynaysid ood ku sameynaysid styleka waa adagtaa inaad wax ku samaysid waxyaalo badan oo ku sameyn kartaa macnaha canvas paragraphka ma aha mid kastaa ku sameyn kartaa waxaa ku sameyn kartaa ul kan waxaa ku sameyn kartaa ilaa hadduu ku roon yahay kan linkiga ku sameyn kartaa any tag oo tag kasta oo la arki karo yaa ku sameyn kartaa stylekan waxaana isticmaali kartaa waxyaalaha css kala geliyo dhanaa isticmaali kartaa so you don't have to worry about hadda waxaan sameynaynaa for example waxaan leenahay div aan sameynaynaa div waxaa weeye waa section camal weeye waa qayb waa qaybtaana qaadanaynaa so div waxaan leenahay style equal to background color waxaan leenahay something like ama background la iska you don't have to say background color background let's say something like orange camal orange okay so orange aan leenahay and then waxaan soo xireynaa divkaas kiisa dambe waxaan geynaynaa meesha ka hooseyso textigan and then as you can see halkaan soo jeedid waa kana qaybta hoose waxay noqotay orange noqotay
waxaad taa ku samayn kartaa and then you could say something like wax kala ku dari kartaa oo sida CSS ka camal waxaa leedahay pattern aan ku dareynaa oo 10 ah 10 pixels save ma jeedid wuxuu sameeyay geesu wuxuu uga daray space kabacdina farta taasa and let's not make the farta red indana waxaan unaya okay save marka basically inline styles ka waxay dhahaan oo aad muhiim u ah markii aad baratid CSS ka habkana loo isticmaalaa waana aad bay muhiim u yihiin waxaa kaloo jiraan rabaa inaan ka hadlo insha Allah formatting waxa la jiro so we'll keep the qaybtaas saasan ku heynaa let's HR qayb cusub noo bilaw waxaan sameynaynaa wax la yiraahdo for example amal formatting waxa la jiro aan soo copy gareysano paragraph kan inta noo keen aan ka bixino style kan aan ka bixino sidiisa noo ahaado saasa noo ahaado waxaan sameynaynaa marka aan fartaan buuran ama capital ku dhibeysaa so aan far yar ku sameyno okay save okay so taas fartanadii waxaan sameynaynaa waxyaalo for example waxaa jiro wax la yiraahdo aan sameyno waxa la formatting alla xalaan formatting waxaa jiro for example waxaa sameyn kartaa b camal haddaad soo qaadatid b micnaheedu waxaa weeye bold waa bold u taagan tahay qaybtan hore bisaan bold ka dhigaynaa linekan hore as you can see saa ujeedid qaybtan hore bold noqotay waxaa kaloo sameyn kartaa waxaa sameyn kartaa boldigan waxaa kaloo ku bedeli kartaa stronga ku bedeleysaa strong micnaheedu waxaa waaye yara buuri camal waaye adke so bold ka dhigaysaa ama fartii ay balacinaysaa oo farta khafiifka aheeda waxay ka dhigaysaa balac waxaa kaloo oo jiro for example waxaa sameyn kartaa italicized so italicized waxaa sameyn kartaa qaybta ugu dambeyso yaa italicized ka dhigaynaa calaamadda I oo lower case I guess lower case aan isticmaalinaa I not question mark I aan isticmaalinaa so tan ugu dambeyso waxaan geenaynaa qaybta dambe because aniga baalkayga editorka wuxuu sameynaa markii aad samaysid taagbo mid kale uu kusii sameynayaa so saa ujeedid meeshaan qoraalkan wuxuu noqday wuu liicday liicsigaasoo liicanaya micnaheedu waxaa weeye waa ayda waa italic aan ka dhigna weeye waa adiga oo sida Microsoft Wordka camal ku jiro oo taabtay I ama B ama bold waxaas taabto waa basically so waxaana dhan waa ku sameyn kartaa ilaa hadduu ku run yahay waxaa ku sameyn kartaa HTML ku sameyn kartaa waxaa sameyn kartaa highlighting wax la dhaho waxaa la mark so mark aa leedahay mark wuxuu sameynaa highlighting uu gelinayaa farta ayuu wuxuu hoos marinayaa far oo yellow uu hoos marinayaa as you can see halkan wakaasaa fartaas uu hoos marinayaa micnaheedu waxaa weeye haddaad rabtid inaad wax highlight garaysid saasaa loo isticmaalaa so that is a good way hab fiican oo loo isticmaalo formattingka HTML-ka laakiin waxyaalahan dhan waxaa ku sameyn kartaa CSS-ka markii aad CSS baratid waxyaalahan inta badan uma baahnaanaysid oo CSS-ka ku habaysan kartaa waxyaalo kaloo badanaa jiro waxaan geli karnaa for example waxaan sameynaynaa quotation waxa la jiro for example camal waxaa rabtaa qoraal inaad quote garaysid qoraalkan camal aan soo qaadanaynaa kaba soo qaad waxaana ka bixinaynaa calaamadahan so let's actually get it and then aan ka bixin waxyaalaha ku jiro waxyaalaha ku jiro aan ka bixinaynaa for example strong iska tuur mark aan tuuraynaa italiga waxaan sameynaynaa quote aan gelinaynaa so quote-ka waxaa weeye I'll explain it give me a second quote block quote aa la dhahaa block quote waxaa weeye kaba soo qaad haddii aad qof war ka qaadaysid oo qof aad leedahay warkan waxaa yiri hebel saanaad micnaha u gelinaysaa so haddaad rabtid waa ka bixin kartaa bdan paragraphka it's up to you you could take it out weyn ma sameynayso you could take that out and then let's actually we have two of them okay so let's save aan dhahno so saa ujeedid blog quote kan gelinay browserku wuxuu sameeyey xoogaha indentin uu ku sameeyey oo uu yara fogay guduhu dhexgeliyey browserka meesha so it shows micnaha browserka wuxuu sheegaysaa waxaan waa quote qof uu yiri
kabacdi waxaad dhigi kartaa hebel aad dhigi kartaa daarabtid waxaad gelin kartaa I waxaa leedahay magacayga hab soo qaad waxaa yiri hebel so just like that waa dhigi kartaa you could say something like that so saa ujeedo kaasaa qoraalka quote kaasaa waxaad dhex gelin kartaa calaamad quote so let's actually put the quote in here kadibna wakaasaa you could see wakaasaa wuxuu si calaamad quote-ka hebel aa yiri boom boom wakaasaa you good to go marka html-ka waxyaalo badan aa ku samayn kartaa iyo arrimo aad u fara badan oo kale laakiin waxaan rabaa intaas inaan kusoo okeysiiyo waxaan rabaa haddaa inaan ka hadlo commentinka oo micnaha haddii aad rabtid code-kan inaynan meesha tusin oo browserka una kasoo bixin waxaad gelin kartaa calaamadda commentiga oo ah calaamadaas taas iyo calaamadaas aad gelinaysaa marka laba calaamadood dhexdooda for example qoraalkan mar rabno inuu meesha kasoo baxo waxaan dhex gelinaynaa calaamadaas iyo calaamadan so calaamada geeska iyo calaamad tacajab laba dhibcood micnaha laba dash iyo calaamadan kale safe aa leedahay browserka ma fiirinayaba xataa micnaha kama soo qaadaya waxaan inay wax jiraan yihiin so commentingkana waxaa ku arki doontaa programming languageska oo dhan way ku jiraan ayagoo kala duwan oo habab kala duwan loo isticmaalayo waxaan u gudbaynaa tables aan u gudbaynaa ilaa haduu ku run yahay let's go to tables waxaan sameynaynaa hr kadibna line cusub noo samee table actually already bahalkiyey u habeeyey so tableka marka micnaha waxaa weeye waa taqaanaan table waxaa weeye waa data for example camal Microsoft Word waxay leedahay table waxa weeye waa rows iyo waxa weeye waa rows iyo columns weeye waa list camal waxyaala list so waxaan sameynaynaa calaamadda tablekan soo qaadanaynaa so table wakaasaa uu noo furmay waxaan dhex gelinaynaa waxa la yidhaahdo tr waa table row waaye table row so tableka rowga ugu horeeyo waa inaad ka dhigta headerka so waxaan sameynaynaa marka waxaan leenahay table th aan leenahay waa table header inta waxaan gelinaynaa waxaan leenahay first name inta waxaan leenahay name ku kalaan sameynaynaa waxaan leenahay table header waxaan leenahay age ku kalaan gelinaynaa waxaan leenahay table header for example waxaan leenahay country so qof magaciisa da'diisa iyo waddanku joogo so qaybtan waa qaybta onlineka ugu horeeya waaye oo waan arki doonaa all this waan arki doonaa midda labaad waxaan sameynaynaa dad qaarkood waxay isticmaalaan for example t body oo ah table body so for example camal markaa soo dhaaftid table headerka oo qaybta titleka kore waxaa gelinaysaa t body kadibna just same thing aan isticmaalaynaa tr oo ah table row so row cusub waaye kan rowgan waxaan gelinaynaa marka waxaa lo table data oo td loo soo gaabiyey saa ujeedu way soo hoosgalayaan table row table datada la geliyey usually waxaa la sameeyaa hal line laga dhigaa so for example camal kan wuxuu soo qabsanaya kanuu soo qabsanaya wuu la egyahay so waxaan leenahay qofka magaciisa soo qaad magacayga and then waxaan sameynaynaa mid kale so waxaan leenahay td waxaan leenahay kan so this one is the age not in here halkan kama sameynayna inta kanaan ku xijinaynaa td so let's say 30 and then td waxaan leenahay United States so hadda waxaan sameynay marka hal row aan sameynay waa row kaliya iyo row kale aan sameynay laba row aan sameynay so let's make more rows aan sameyno inta waxaan leenahay magaca kale aan iska gelinaynaa Yusuf Ali iska dheh inta waxaa dhahdaa 25 iska dheh intaan iskaga daa magaalada waddanka alright so tableka waa intaas marka so table ku bilaabaysaa waxaa u sameynaysaa table rowga ugu horeeyo waxaa ka dhigaysaa waa headerka weeye waa arki doonaa and then kadibna badigii u sameynaysaa oo aad gelinaysid informationkii la rabay inuu display gareeyo alright so aan save gareyno and let's see what we have as you can see saa ujeedid waxaa arkaysaa waxaa soo baxay magacii oo waa kana da'dii iyo waddankii hadda wax oo layman u dhexeeya ma jiro sababtoo ah
wax oo styling kuma jiro oo CSS styling waxay dhahaan kuma jiraan, which is markaas way adag tahay inaa wixii si fiican u kala aragtid. waxaan ku dareynaa xoogaa yar style aan ku dareynaa. waxaan sameynaynaa marka hore waxaan leenahay border is equal to 1. marka arrintaa waxay u tahay gooni, tablekii gooni u tahay. mararka kale ma isticmaalaysa inta badan, badanaa waxaa la isticmaala CSS-ka. kadib waxaan leenahay style is equal to border, waxaan leenahay border collapse, and then waxaan leenahay collapse. tan waxayna siinaysaa option ikhtiyaar, waxayna siinaysaa aan geesaha mid kasta oo geesihiisa aan wax gelino waxay noqotaba. so for example saas markaa dhahno markaasaa saa u jeedid waxaan gelinay line 1 ayaan gelinay. inta haddii aad ka badisid oo 2 aad dhahdid obviously waxaa weynaanayo qaybta kore. so saa u jeedid table saasaa loo sameeyaa. waxyaala badan aad kusii dari kartaa haddaa rabtid. waxaa sameynaysaa waxa ugu muhiimsan waxaa inaad taqaanid table headerka oo halkaan ah. waa inaad taqaanid table rowga iyo table daatada inaad kala taqaanid. so halkaanaana ka maamulaysaa wixii oo column. so column cusub daarti inaad kusoo dirtid sida camal kaba soo qaad country camal, intaa ku daraysaa mid cusub halkan uga daraysaa. kadibna waxaa ku daraysaa table row kalaa ku daraysaa oo wixii ku jiraan ama micnaha wax la eg waxaas. markasta ood 3 halkan samayso halkaana 3 samee tableka headerka. marka tableska intaas ayaan uga gudbayaa. waxyaalo badan oo kala jiro tableka lagu sameyn karo iyo design iyo habab badan oo wax lagu sameyn karo, laakiin waxaan isleeyahay intaas ayaa ugu muhiimsan. marka waxaan u gudbaynaa waxa la yiraahdo HTML layout habka uu micnaha hadda waxyaalo badan iska wadnay. kun waxaa iska wadnay oo marba mid la boodaynay, laakiin waxaa u baahan tahay inaad structure u samaysid oo micnaha aad qaabaysid wixii ay u baahan tahay. waxaa jiro marka waxa loo HTML semantics waxa la jiro oo muhiim ah oo aad micnaha ku anfacaya markii aad sameynaysid page cusub oo HTML ah. waxayna anfacayaan waxyaalo badan oo aan tus doonaa habka u shaqeeyo. marka ugu horeyso waxaan sameynaynaa actually let's copy kan aan copy gareysano, kadibna aan sameyno page cusub. ama waxyaalahan aan sameynaynaa waan tirtiraynaa, kadibna actually let's create a new one. mid cusub aan sameynaynaa, waan save gareynaynaa, save as. waxaan ku bixinaynaa kan about.html ayaan leenahay save. so waa file cusub oo HTML ah oo aan hadda sameynay. waa inaan furno marka filekan just halkaan istaajinaya kan go live aan leeyahay wuu ii furmanaya marka intuu igu furmanaya as you can see. so hadda ever waaye. waxaan sameynaynaa marka the first thing aan sameynayna waxaa weeye doc typekii aan sameynaynaa, kadibna HTML structure aan sameynaynaa. waxaan leenahay body headerkan aan ku daraya kor aan ku daraya. headerka already waa noogu jiraa meesha. so waxaan sameynaynaa marka waxa la dhaho HTML semantics aan sameynaynaa oo aad muhiim u ah inaad fahantana u baahan tahay. waxa ugu horeeya waxaa HTML semanticska marka aan sameyna horta marka hore waxaan ku bilaabeynaa headerkaan ku bilaabeynaa. HTML semantics waxaa marka semantics I think that's how you spell ma garanayo. waxaa weeye waa habka ay iskugu dubaridan tahay HTML-kaada, habka ay u habaysan tahay. so for example camal haddaan rabno inaan sameyno qeybta headerka kore waxaan leenahay header. waxaan headerkan waa wax ay fahmayso uu fahmayo browserku fahmayo. hal waxaan rabaa inaan intuso marka. so for example let's say kana u furno. so HTML semantics halkaana lagu sharaxay. headerka qeybtana ujeedid weeye headerka qeybta kore. headerka waxaa soo hoos galo. headerka waxaa ku jira for example camal loogadii, waxaa ku jira waxyaalo kale hadda u baahatid. waxaa ka hooseeya headerka navigation badanaa. so navigation nava loo soo gaabiyaa. qeyb kale jirto section qeybtan waxaa ku sameyn kartaa sliderska iyo waxyaalaha u baahanta markaas inaad oo joogto ah. halkan articlena waxaa sida blog ee camal waxyaalaha ku sameyn kartaa. aside aa jiro. asideka waxaa loogu talagalay in lagu sameeyo for example camal waxyaalaha geeska rabto inaad ku tusto website-ka sida linkska iyo xayeysiimaha iyo waxyaalahaas. iyo footerka jiro oo footerkana waa muhiim. waxaa ku tusi kartaa copyright-ka iyo contact information waxyaalahaas. mid kastan definitionkiisa waa kana basically waxa hadda dhahay buu leeyahay. alright, so aan ku laabano codekanaga marka.
so saa ujeedid waxaan sameynaynaa header. So let's do exactly waxa dirtaan aan ka hadlaynay. So header aan sameynay, aan iska tirtirnay HTML semantic aan, not our body, just HTML semantic. Okay, so header aan sameynayna, headerka gudihiisa waxaan gelinaynaa for example camal waxaa gelin kartaa halka waxaa gelin kartaa for example camal let's put span logada halkaan gelinaynaa, logo here. inta waxaan gelinaynaa, waxaan leenahay navka gudihiisa waxaa gelinaysaa for example camal navigationkii. So example waxaan gelinaynaa unordered list aan gelinaynaa, li home, li kala dhowr li aan sameynaynaa, adi 2 xabo 3 xabo dhowr xabo. Let's say about, waxaan gelinaynaa aan leenahay projects iyo contact us, contact. Alright, so hadda haddaan save gareyno, let's hope this works. Live serverka hata nooma shaqeynayo, aan istaajino. Okay, stop this one, let's say live. Alright, so dad wax ka bedelo, it work. Okay, alright, so hadda waxaan sameynay marka logadii halkaan gelinay, waa kana navigationkii, waa noo shaqeynaya, everything's working. waxaan kaloo sameynaynaa marka hadda navka waa sameynay, let's go do aan sameyno ilaa ku run yahay sectionka. So section ayaa leedahay, waxyaalahan waa wax browserka fahmi karo, so you don't have to worry about it. marka website sameynayso waa isticmaali kartaa sectionka, waxyaala badan aad soo gelin kartaa. For example, let's add a paragraph about us camal, ama waxaa gelin kartaa bio camal, ama waxyaala information adiga ku saabsan. waxaa kaloo sameyn kartaa article waxaa gelin kartaa the latest, let's put the paragraph here, latest article, waa articleka ugu dambeeyey ayaa halkan gelin kartaa haddaa rabtid. And then waxaa ku xijinaysaa aside waxaa weeye waa geeska weeye. So we could put something like a links, put a link aan gelinabo. So let's link to home, aan ku link gareyno, ama let's not link anywhere. So marka haddaad rabin inaa wax aadan link gareynin, saasaa loo geliya, calaamadaasaa la geliya hashtag new link. Okay, asideka waxyaala kala badan aa gashan kartaa. And the last one waxaa weeye furkana muhiim weeye. Copyright halkaan gelin kartaa, iyo waxyaala carrada ka badan aad gashan kartaa direct, iyo contact information, iyo waxaa gelin kartaa iyo all the stuff oo furka la geliyo. adiga websitekaada wuxuu u baahan yahay ku xiran tahay. Obviously websiteka naga macnaha ma tusaayo wax kasta sidii ahayn, uma tusaayo, oo asideka geeska ma geynayo. aside waxbaan gelinay, linkaa gelinay, geeska ma geynayo asideka because wixii ma organize garaysno, and also we don't have CSS ma haysano. laakiin habkaas ayaa loo isticmaalaa markay noqoto layoutka. waa inaad ka fikirta layoutka marka aad sameynaysid. waa qaybta kore headerka oo dhinaca loogada iyo waxyaalaha kor joogo aad gashanaysid. navigationka nav aad dhehaysaa, kadib waxaad gelinaysaa navigationka caadiga ahaa. section aad sameynaysaa, waxaa rabtaa gashan kartaa sectionka. article waxaa rabtaa gashan kartaa, special articles aa loogu talagalay. asidena waxaa gelinaysaa waxyaalaha geeska ah, ama dhinaca midigta bidixda midku raba ahaado. furkana waxaa gelinaysaa waxyaalihii furka. So keep in mind markaa dhisaysid application oo waxaan ka wadaa HTML document markaa dhisaysid, ama page HTML ah, make sure hubi in aad isticmaalaysid semantica oo ah waxyaalahan, taas hubi. Okay, so semantica waan ka gudubnay. waxaan rabnaa markaa hal waxoo kale inaan ka hadlo oo la xiriiro layoutka. waxaan rabaa inaan ka hadlo waxa la yiraahdo HR. Okay, waxaan rabaa inaan ka hadlo waxa la yiraahdo layout techniques, hababka ay macnaha industryga ama technologyga haddaan jirno, hababka kala duwan ee wax u sameeyaan. midka ugu horeeyo midka aan isleeyahay macnaha dad qaarkood in ay waxa laga yaabaa ay ku kadsoomaan
waxaa html tables waxaa la dhaho waa tableska isticmaalaynay ayaa waxaa loo isticmaalaa website-kii oo dhan so headerka waxaa ka dhigaysaa table qaybtii qoraalka waxaa ka dhigaysaa table meel kasta table ka dhigaysaa tan ma fiicno not good don't use this one kana isticmaalin waxaa kaloo jiro waxa la isticmaalo waxaa ka jiro css float waxa la dhaho anigu weligay ma isticmaalin css float property aan ka wadaa not prog css float property waa horaa la isticmaali jiray laakiin it's not the most effective ma habka ugu qatarsan ma ahan hab kalaa jiro oo la dhaho css fluxbox aa lahaa this one is the one oo good game midka fiican kan wey fluxbox haddaa rabtid inaad baratid insha allah mustaqbalkan ka hadli doono fluxbox aad bay muhiim u tahay layoutka markaad samaynaysa oo saan camal u samaynaysa wax oo sida iskugu soo barbar dhigi lahaayeen haddaa rabtid inaad aside ku gees aado wixii oo ritaadhooda responsive waxayna noqdaan css fluxbox aad buu muhiim u yahay haddaa rabtid wax ka ogaatid google-ka geli laakiin insha allah casharada mustaqbalkan ka hadli doonaa midka kale ay dadka isticmaalaan waxaa weeye waa css frameworks waxaa ka mid ah bootstrap baa ka mid ah bootstrapna waa la isticmaalaa so haddaa rabtid layout inaad samaysid bootstrap baa soo gashanaysaa kabacdi website-ka dhan waxa kuu habeenaya bootstrap waxaad raacaysaa documentationkoodii habka wax u sameeyaan and the last one would be css grid waxay dhahaan css gridka waxaa weeye waa hab ay css-ka u samaysay oo aad isticmaali kartid oo aad u habeen kartid website-kaada which is good way fiican tahay maxumo I'll say labadaana ugu muhiimsan bootstrapka iyo fluxboxka haddaa rabtid inaad isticmaashid labadaas ayaa waxaan isleeyahay ugu fudud isticmaalkooda siiba bootstrap way fududahay laakiin haddii aad rabtid inaad css baratid waxaa ku fiican fluxbox inaad isticmaashid qaybta ugu dambeysa rabno inaan ka hadalno maanta casharka aad buu u dheeraado aan ka xumahay qaybta naga comment garee qaybta aan rabo inaan ka hadlo kullina saan u comment garee hadda si dhaqso saan ugu comment gareeyay waxaa weeye highlight aan saaray kabacdi windowskayga waxaan taabtay control waxaan taabtay calaamadda question mark ay ku qoran tahay su-aasha ku qoran tahay oo shiftiga ku xigto alright so midda ugu dambeysa rabno inaan ka hadalno oo ugu muhiimsan aan bal halkan line cusub sameyno and also let's stop kan aan stop gareyno let's stop this one kan aan furno oo homeka kii awl noo furnaa weeye alright so midka ugu muhiimsan oo aan u baahan inaan ka hadalno waxaa weeye waa formska waxyaalaha ugu muhiimsan ay ka mid yihiin html-ka actually formska waa waxyaalaha ugu horeeyey oo html-ka lagu soo daray markii ugu horeysay 93 intuu dhexaysay waxyaalaha ugu horeeyey oo la dhahay waxaan u baahannahay waxay ahaayeen formskii ahaayeen si ay dadka wax usoo gelgeliyaan si macnaha dadka comment u geliyaan wax u geliyaan formska ugu horeeyey waxyaalihii html-ka la hormariyey okay so form markaa samaynaysa basically all you have to do is form ayaa leedahay waxaa kusoo baxayo taggii formka waxaa arkaysaa marar badan waxaa arkaysaa halkan waxaa ku jira wax la action equal to and then linka ku jira waxbaa ku jira halkan so kaba soo qaad waxaa ku jira camal waxaa ku jira send.php camal wax noocaas camalaa ku jiro so waxaa ku jira file halkan kabacdina waxaa weeye waa method waxaa arkaysaa waxaan you don't have to know hadda waxaan method post waxaan you don't have to know laakiin micnaheedu waxaa weeye formka markii submit la dhaho soo diro wixii formka lagu soo diray inta u dir weye post iyo waxaa jira wax loo get labadaasna mustaqbalka baran doontaa laakiin micnaheedu waxaa weye just wixii formka ku jiray halkaas u dir weye alright so formka waxyaalo badan uu leeyahay waxaa ka mid ah waxyaalahaas inputka waxaa weeye waa meesha wax la gelin lahaa weye haddaa input maqashid inputka waa inuu type leeyahay weye so text aan leenahay typeka waa text kadibna we can just close it we don't even need wax kale uma baahnin input text leh and that's it safe aa leedahay as you can see oo kaasa waxaa kusoo baxaayo input text laha kusoo baxaayo alright waa sii qeexi kartaa waxaa rabtaa dhihi kartaa so waxaa leedahay name equal to waxaan leenahay for example camal fars ama waxaan leenahay name so hadda waxba isma bedelayaan because
waxba kumaana qorin weli waxaa samayn kartaa title u samayn kartaa waxaa samayn kartaa for example camal waxaa leedahay label aan u sameynaynaa so let's say label waxaan leenahay name as you can see wakaasaa nameka soo baxay formka meesha la gelin lahaa dhowr nooc oo kale aan sameynaynaa marka so formka micnihiisu waa text way form kala duwanaa jiro let's create mid kale aan sameynaynaa waxaan leenahay waa let's put something like a kan aan gelina actually kan aan gelina email so html5 waxay sameeyeen waxa la yiraahdo typeka waxaa ka dhigi kartaa email wayna fahmayaan waxaan in email laga wado haddii hadhowdii aad qofku wax kala geliyo browserku uma ogolaanayo waxaas inuu geliyo marka html5 ayaa lagu yaqaanaa waxyaalahaas so laba form hadda noo yaalo midna waxaa weeye waa email midna waxaa weeye waa name waxaan gelin karnaa mid kale oon dhahayno password so this one is the password let's put the password here so typeka haddaa password ku bedeshid waxaa dhacayo dhibcaa soo baxaayo oo lama arkaayo so for example hadda safe haddaan dhahno aan isku dayno qaybta passwordka inaan wax gelino dhibcahaasaa soo baxaayo so sababtay usoo baxayan maxaa yeele typeka waxaa weeye waa password haddaan typeka aan ku bedelno text haddaan ku bedelno wax kalo caadiya loo arkaa wixii okay and actually can let's push it back aan yareyno sababta waxaana iskugu dhex daadsan yihiin is because waxaan u baahannahay in aan kala bixino wixii mid kasta line cusub inaan ka dhigno so br aan gelinaynaa we'll try that kana br geli waa line break waa br ta okay si kasi wakaasaa aadin iskugu dhadhowyiin hadda waxa oo space u dhexeeya ma jiro space waan siin karnaa haddaa u baahano waxyaalahaas laakiin waxaa u baahanta styling waxaas inaad samaysid kun waxoo kalaa samayn kartaa passwordka ma ahee waxyaalo kaloo carad ka badan waxaan sameynaynaa for example camal selection aan sameynaynaa so qofka waxaan u baahannahay marka inta uunan micnaha magaca marku geliyo kabacdina wax select galayaan u baahannahay taas waxaan sameynaynaa waxaan leenahay select waxaan leenahay name aan siinaynaa waxaan leenahay kaba soo qaad for example camal country camal aan leenahay wadamada selecta gudihiisa waxaa gelinaysaa options aa gelinaysaa option aa qoraysaa optionkana waxaa siinaysaa value marka optionka wuxuu u baahan yahay value markasto sababta ugu baahan yahay valuegu maxaa yeelay waa inuu ogaado wuxuu yahay for example so let's say camal Soomaali kan waxaa usoo gaabin kartaa som haddaa rabtid laakiin inta inaad ku qortid waaye xarafkii oo dhan option kalaa gelinaynaa let's copy this one paste aan leenahay inta waxaan gelinaynaa ken for Kenya camal so hadda save haddaan dhahno saa ujeedid because break maana dhihin kan we didn't say break waxaa noo soo baxday Soomaaliya also kan waxaan siin karnaa waa inaan siino label si uu micno noogu sameeyo label aan siinaynaa labelka waxaan ka dhigaynaa choose country ka dhigaynaa alright so saa ujeeda labelka waa kana qofka magaciisu buuxinayaa waddankiiu dooranayaa drop down and then waxaan ku daraynaa so that's usually habka loogu daro selection one more thing aan ku daraynaa oo ah text area aan ku daraynaa wax la yiraahdo text area marka ma gelinaysid waxyaalahan input waxaas ma gelinaysid ayada magaceeda gelinaysaa you say text area you could waxaa rabtaa gelin kartaa like you could just keep it as it is and then we could just keep it like this and then waxaan leenahay name equal to message and that's it markaasa text area meeshu soo gashay waxaan ka bedelaynaa waxaan gelinaynaa label aan gelinaynaa and all this waxay dhan isku dhex daadsiin sababtoo ah css meesha ma taalo markii css la geliyo ayay kala baxayaan oo qurxanaanayaan message text area wuxuu khatar ku yahay oo ku fiican yahay let's give this one br
and also waxaan kaloo samayn karnaa mid kasta paragraph waan gelin karnaa laakiin dhib ma laha because paragraphka wuxuu sameynaya space uu siinayaa, it will give more space. laakiin waa fahansantaha hadda micnaha aan ka hadlayno. magacii waa kana, drop downkii, text areada waa tana. text areada keligeedaan soo bixinaynaa. let's comment out waxyaalahan kale, commenta saarno si aan text area si fiican kuu tuso. not the text area laftigeeda comment garaynay. alright, so hadda text area noo soo baxayso as you can see. so text area waxay ku fiicanta waa weyneyn kartaa, si keligeeda weyneyn kartaa. I hope waxyaalahan kale inaan kor geyn karno. let's iska hoos marina tablekan, iska hoos marina si ay spaceka kor aan u aadno. so text area saa ujeedid waad weyneyn kartaa, waa yareyn kartaa, weyneyn kartaa. waxyaalo badan ay qaadi kartaa, qoraal fara badan ay qaadi kartaa text areada. alright, so let's go back. uncomment waxyaalahan kaloo dhan. as you can see waxyaalo badan aa ku samayn kartaa. waxaa jira wax la dhaho radio box, waxyaalaas radio iyo selection, maxaa la jiray, waxaa samayn kartaa checkbox iyo waxyaalahaas. laakiin adig google gale waxyaalahaas waa just waxaa leedahay checkbox iyo radio. radioga waxaa weye waa dhibic aad dooran kartid multiple choice markaad sameynaysid oo wax multiple choice radio aad isticmaalaysaa markii aad rabtid inuu qof waxyaalo badan uu select gareeyo oo fara badan. waxaad dooranaysaa checkbox. marka that is usually habka loo sameeyo markay noqoto qeybaha form ka mid ah. the last one mid ugu dambeysa raba inaan ku daro waxaa weye waa buttonki weye. so we cannot forget the button. maxaa yeele formkii marka qofka uu buuxiyo waxaa u baahan tahay button aa u baahan tahay. so buttonka laba habaa loo sameeya. hadda korna waa tusay habka kale wuxuu ahaa just button la leedahay bas. just say button and then click me and that's it. kaasaa meeshu ku yaalaa. midka kale waxaa weeye inta ku darna br. midka kale waxaa weeye markii aad formka ku dhex jirtid hab kalaa loo sameeyaa. saan looma sameeya markii aad formka ku dhex jirtid. waxaa la yidhahdaa input type submit way, and then waxaan sameynaynaa name aan u bixinaynaa which is submit. okay, and then value which is submit. and that's it. zigsi wakaasa hoos ku yaala. so hadda haddaan ana submit wuxuu sameynayaa filekan send.php ayuu u dirayaa waxaan oo dhan aan meesha gelinay. let's try that. you can see filekii u diray send.php ayuu ku post gareeyey. so that is usually habka loo sameeyo formka. waa qurxin kartaa css-ka markaan barano form qurxan oo kale iska aragaa sameyn karnaa. laakiin hadda at least inaad fahantid qaybo u kala baxo formka habka loo bilaabo waxyaalahaas inaad taqaanid ayaa muhiima. ay qaybaha u kala baxaan html-ka, html tagga. intaas kusoo gabagabeynaya aada u mahadsantiin dhammaantiin. casharkan hadduu ku anfacay fadlan subscribe dhagsi, share gare insha allah si aan usoo geliya casharo kaloo badan. aad u mahadsantiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.